degmada Qubbi waa mid ka mid ah 8 degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Erar waxayna u jirtaa magaalada Fiiq qiyaas dhan 90 kiiloomitir sidoo kale degmadu waxay 295 kiiloomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigtaa xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga degmadu waxay ka kooban tahay 16 santar iyo 42 tuulo hoosaad bulshada degmada ku nool waxaa lagu qiyaasaa tiro ka badan 119 oo qof iyadoo bulshada degmadu isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley waa degmo leh dhul aad u baaxad weyn waxayna isugu jirtaa dhul bannaan kaymo waaweyn iyo dhul buuraley ah degmada Qubbi waxay xad kala leedahay dhinaca waqooyiga degmada Fiiq dhinaca galbeed waxay xad kala leedahay degmada Miina ee dawlad deegaanka Oromiya koonfurta waxay xad kala leedahay degmada Lagahida koonfur bari waxay xad kala leedahay degmada Xamaro waqooyigana waxay xad kala leedahay degmada Mayumuluqo jooga dhulka uu badda ka sareeyo waxa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 150 feet ilaa iyo 150 feet cimilada degmada gaar ahaan heer kulaylka waxa lagu qiyaasaa 25 ilaa iyo 30 heer kulka sidoo kale heerka roobka waxa lagu qiyaasaa 1 ilaa iyo 1700 dhinaca dhulbeereedka degmada waxay leedahay dhul qiyaas ahaan lagu sheegay 15,000 oo hektaar oo aad ugu habboon wax soo saarka beeraha taasoo ay ku soo daacaan dooxooyinka kaymaha dhinaca buuraleyda Oromiya degmadu waxay caan ku tahay kheyraadka dabiiciga ah sida malmalka fooxa xabagta cadaadda duurjoogta noocyadeeda kala duwan wabiyada iyo toga mara degmada wabiga Shabeelle oo ilaa iyo 70 kiiloomitir dhinaca hoose ka mara degmada Qubbi toga Erar toga Mucha toga Julul dooxa Washaaqo iyo dhaamam waaweyn iyo biyo xidheenno waaweyn oo ilaa 100 gaadhaya ayay degmada Qubbi caan ku tahay